السلام عليكم صاحبي الكسو دوادا وركنا مانتاي فضلا هداد كنالكنا كو عصوبتا هاي سبسكرايب نوصار سي اد اولا سعوتو وراركا وركن حقا مهد سندين بين حسن شيخ محمود يريزول الزارع حسن عبد برre in baaritaan lagu sameeyo ay ogaadaan dibandaabyooyinkii ku yimid doorashooyinka dalka iyo badqabkii dimuqraadiyadda iyo xurriyadda muwaadiniinta. waxaa loo baahan yahay in wixii horoo dhan la iska halmaamo waxaa horoo dhan wuu iska dhammaaday marka bog cusub iyo beejis cusub iyo qalbi cusub oo nadiif ah iyo saaxiibtinimo iyo soomaalinimo iyo isjacayl kusoo dhawaada الرئيس الوزاري هو دولة فدرالك الصومالية مدن محمد حسين روبلي أيا حلكي كوريجي رئيس الوزراء عصوب دولة فدرالك الصومالية مدن حمس بري الرئيس الوزاري هو محمد حسين روبلي أيا سوء قاسمي حفلة وقل لها إنو قاضو دقال دنك أفكا xukuumadii hore ee maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dad aad uga agdhow ee baraha bulshada ka dhaliila maxamed xuseen rooble ayaa weerar aad u ba'an ku qaaday professor maxamed ingiriis oo maalin dhoweed shaaciyey inuu rooble uu abaabulay afduub loogu geystay ganacsade soomaali ah oo aad u taageera maxamed cabdullaahi farmaajo rooble ayaa ku baaqay dadkaas inaan la dhagaysan sidoo kale sidaa daawateen maxamed xuseen rooble ayaa ka codsaday ra'iisul wasaaraha cusub in uu la dagaaltamo ama baaritaan iyo dabagal ku sameeyo waxyaabihii ka dhacay doorashadii madaxweynaha Soomaaliya iyo isqabqabadkii ka dhaxeeyay asaga iyo farmaajo laakiin sidaas ka duwan xamse barre ayaa u sheegay maxamed xuseen rooble in xukuumadan cusub ay ku dadaali doonto saaxiibtinimada iyo soomaalinimada iyo inay dadka ugu adeegi doonto qalbi furan iyo saaxiibtinimo maxamed xuseen rooble ayaa halkaas kala kulmay waji gabax aad u weyn halkaasoo lagu siiyay jawaab uusan filanayn xamse barre ayaa u muuqda mid ka warhaya waxyaabihii wadanka ka dhacay xamse barre ayaa iska ilaalinaya inuu dhinacun la jiro dhanka madaxweynihii hore farmaajo iyo maxamed xuseen rooble xamse barre ayaa u muuqda mid dhexdhexaad oo shaqadiisa hore uga sii soconaya aana u joojin doonin khilaafaadkii hore ee rakaatiyay xukuumadii hore intaasaan la wadaagayna maanta madaxweynaha testiga waa laga qaaday negative baanu ahaa sida ugu dhaqsaha badan baanu dadka ula hadli doonaa una soo shaqo geli doonaa insha Allah iyadoo wali la raacayo maaragtay tilmaamihii caafimaadka وأرنا هذا فعلا madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo ku dhawaaqday filla Soomaaliya soo caafimaaday madaxweynaha ayaa kadib baaritaan laga qaaday ku guuleystay inuu noqdo negative madaxweynaha ayaa la rajaynayaa inuu shaqadiisa dib ugu soo laabto adurbaba waxaa baraha bulshada ka socda isweydiimo badan oo ku saabsan sababta keentay in xanuunkan la geliyo baraha bulshada dadka qaarkii ayaa sheegaya xanuunkan in lagu qarinayo safarkii uu ku tagay madaxweynaha dowladda Israa'iil uusan waxba ka jirin siday ahaataba Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegayaa inuu shaqada dib ugu soo laaban doono maalinta berri ah adawadayaal wixii warar ah iyo wacaal oo nooga barateen wanaga intaas fadlan haddaad kanaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar si aad ula socoto wararkan xiga mahadsanidin